بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان أصحابته وادن سلامي ملك استوديو دنيا كجوجتان إن شاء الله هذا الدير موضوع waxaan rabaa inay idinla wadaago barnaamij cusub oo bilaabi doono aniga iyo ustaad Cabdinajiib waxaan ku soo bandhignaa aragtiyaha laga yiri wax akhriska aragtiyaha wax anfacaya aragtiyaha faa'iidada leh aragtiyaha aan wax ka dhaxlayno waxa soo dhan ayaan soo bandhigi doonaa waxaan rabnaa barnaamijka qaybtii ugu horeysay inaan idinla wadaagno oo aad kala socotaan baraha bulshada iyo social media barnaamijka waxaan u talagalay dhalinyarta ugu faa'iideyno barnaamijkaas waxaan rabnaa inuu noqdo oo la magac baxo akhris iyo aragti inuu la magac baxo ayaan rabnaa akhris iyo aragti macnaheedu tahay inaan soo bandhigno aragti ay qoreen dad aqoon-yahano buugga u horeeya ama kitaabka u horeeya oo aan qaada dhigi doono wuxuu noqon doonaa muuqaalka ugu soo horeeya haddii Ilaahay yiraahdo buuggan oo la yiraahdo al-qiraa'atu manhaju hayaat oo insha Allah soo kooban aad maalmaha soo socda keli doontaan halkan waan ku soo bandhigi doonaa insha Allah qiraa'adu iyo akhrisku waa hab nololeed buuggaas ayaan rabaa halkan inaan ku qaada dhigno oo ka warramaya akhriska waana barnaamij inoo socon doona kitaabo kale oo noocaas oo kale aan ka sii wadi doono wax akhriska ayuu buuggan ka hadli doonaa magaciisa iyo waxyaabaha buuggan ku jira si hoos ayaan u geli doonaa xilliga muuqaalka maaragtay idin soo gudbiyo arki doontaan barnaamijkan ogaanin waa barnaamij qiimo badan oo ku soo biiray baraha bulshada insha Allah aad la wadaagi doono waxaan igula jiraa aniga iyo saaxiibkay Axmed Caan Sare oo aad ku kulmi doono insha Allah barnaamijka dhexdiisa fiidiyogan aad ku arki doontaan halkaas ayaan ku soo bandhigi doonaa waxaan leeyahay ha moogaanina United Dolphin aad u mahadsantiin